السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديالكم سو هذا برنامجka ciyaaraha kubadda cagta wararkii ugu dambeeyay natiijooyinkii kulamada la ciyaaray Champions League ee xalay iyo sidoo kale kulamada la ciyaari doona caawa sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulamada horyaalka loo yaqaan Europa League oo la ciyaari doona maalinta Berita oo Khamiis ah aan kor marnay Champions League kulamada la ciyaaray Borussia Dortmund ayaa 3-0 kaga badisay kooxda lagu magacaabo Copenhagen oo ka dhisan dalka Denmark sidoo kale Dynamo Zagreb ayaa hal iyo kaga badisay kooxda Chelsea wararka ku saabsan Chelsea ayaa sheegay in tababaraha Thomas Tuchel laga ceeriyay shaqada maanta kulankii u dambeeyay oo kooxda Chelsea leeyeen oo ahaa kulankii xalay laga badiyay hal iyo eber ayagoo ku ciyaarayay garoonka kooxda Dynamo Zagreb sidoo kale 2-0 Benfica ayaa kaga badisay kooxda Maccabi Haifa sidoo kale Real Madrid ayaa 3-0 kaga badisay kooxda Celtic ayaa garoonkooda lagu ciyaarayay Real Madrid ayaa away ahead 3-0 ayayna ku badisay kooxda Real Madrid oo kaamka hore lagu kala maray eber Real Madrid waxa dhaawac ka soo gaaray ciyaaryahankooda lagu magacaabo Benzema balse xidiga aan dhawaanahan in badan u ciyaareen kooxda ee la yiraahdo Eden Hazard ayaa wacdar ciyaarta dhigay isagoona goolal labadii gool hore ka shaqeeyay midna caawiyay midna ka soo shaqeeyay midka kalena ugu dambeeyay isagoo dhaliyay sidoo kale kooxda PSG ayaa 2-1 kaga badisay kooxda Juventus labada gool waxa uu dhaliyay kooxda kubadda cagta PSG ciyaaryahanka lagu magacaabo Kylian Mbappe ciyaartaas ayaa ahayd ciyaarta ugu xiisaha badan ee dad badan ay daawadeen ee dhacday oo laba koox oo aad u adag dhaxmartay PSG ayaa 2-1 ku badisay kaga badisay kooxda Juventus sidoo kale Leipzig ayaa 4-1 ugu badiyay guriga joogta kooxda Shakhtar Donetsk Salzburg ayaa baraja hal la gashay kooxda AC Milan balse kooxda kubadda cagta Man City ayaa ku fartay gool 4-0 ay kaga badisay Sevilla Man City ayaa ku ciyaaraysay dalka Spain martina ku ahayd garoonka kooxda Sevilla oo kulmadii dhacay in natiijooyinkii Champions League ee xalay sidoo kale waxay eegaynaa kulamada dhacaya caawa Ajax ayaa la ciyaaraysa kooxda Rangers Frankfurt sidoo kale kooxda Sporting Lisbon dhawaan ayay soo galayaan ciyaarahaasi daqiiqada ayaa ka haray kooxda Atletico Madrid iyo FC Porto ayaa wada ciyaari doona Barcelona iyo sidoo kale waxa wada ciyaari doona kooxda Victoria Plzen Club Braga iyo sidoo kale waxa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen Inter ayaa gurigeeda ku qaabili doonta kooxda Bayern Munchen sidoo kale Napoli ayaa gurigeeda ku ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo labada kulan ee aad u adag ee dadka shaqay doonaan sidoo kale kooxda Tottenham ayaa garoonkooda ku soo dhaweynaysa kooxda Olympique Marseille ee ka imaanaysa dalka iyo Faransiiska waa kulamada la ciyaari doono Champions League caawa iyo sidoo kale waxaynu ka hadalnay kulamadii la soo ciyaaray Champions League waana weekii koobaad ee la ciyaari doono Champions League gurubyadiisa sidoo kale Berito waxa la ciyaarayaa koobka loo yaqaano Europa League kooxda Arsenal iyo Man United ayaa ku jira Europa League ay ciyaaraya Arsenal ayaa u safri doonta kooxda Zurich la yiraahdo ee ka dhisan dalka Switzerland sidoo kale kooxda PSV Eindhoven iyo sidoo kale waxa wada ciyaari doona kooxda lagu magacaabo Boden Clement Man United ayaa la ciyaari doonta kooxda Real Sociedad sidoo kale Lazio Feyenoord ayaa wada ciyaari doona sidoo kale kooxaha kale ee ku jira waa Roma oo u safri doonta kooxda Ludogorets la yiraahdo iyo kulamo kale ayaa la ciyaari doona Champions League kooxo badan ayaa ku jira oo gaaraya ilaa iyo dhowr iyo 30 naadi sidoo kale haddaynu eegno wararka kale ee la xiriira ciyaaraha kubadda cagta wararka ugu waaweyn maanta waxay ahaayeen tababaraha kooxda Chelsea ayraada tababarihii hore ee kooxda Chelsea ninkii Thomas Tuchel ayaa shaqada laga ceeriyay tababarahani ayaa Chelsea leeyay ilaa 100 kulan tababaraha lagu bedeli doono ayaa la sheegay inuu yahay tababaraha u ciyaara kooxda tababaraha ayraada kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Brighton ninkii Graham Potter kooxda Brighton ayaa ogolaatay kooxda Chelsea in ay wada hadal la furi karto Graham Potter ayaa la sheegay inuu u safray London si uu wada hadal ula yeesho milkiilayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea kadibna waxa la filayaa in lagu dhawaaqo heshiiska tababaraha Graham Potter oo kaga soo wareegi doona kooxda Brighton una tababari doono kooxda kubadda cagta ee Chelsea waa ku maasantahay daawashada muuqaalka fadlan like saar fiidiyoga sida share garee